bulshooy bishaaro warheede waa maxay bishaaradu soo ma ogid in laga raystay xarumihii dadka badan la isku dhex cilaajinayay oo Dr. Axmed Cilaaj uu furay xarun dadka si gaargaar ah lagu daweeyo ilaan xaaji xasadkayga baad ahayd maxaad mar hore ii geen wayday xaruntaas sida gaarka ah dadka loogu daaweeyo waa adiga boqolka qof igu dhex darayeen haddaba ina keen aan booqanay Dr. Axmed Cilaaj laga raysay wixii hore Al-Hilaal Herbal Online waa xarun daawo dhireed oo leh goob jiif ah bukaanku ku nasto ilaa uu ka bogsanayo laguna daaweyn sidoo kale Al-Hilaal Herbal Online waxay leedahay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة والأخوات كسو دوادا برنامج كي إنو سعودية كساب سنة قرشة عذر كاغو وقوشة عافمات كاغا غيبتا وحاسقونا أوئينا دادك قباحان ونظن صونق نقضاح إيش صونق نقضاح قفك مركي لقد داوية بعدنا حنونكي هدنا دريمية سحر كقفك مركي لقد داوية هدنا ودريمية صونق نقضاح وحيرا صونق نقضاح محا السبب maxaa maaragtay loo gudbi karaa caqabada noocaas oo kala ah daawo noocay ah qofkaasi xanuunkaas looga ciribtiri karaa barnaamijkaas ayaan rabnaa inaan insha Allah taala aan usoo gudbino walaalaha ku xiran channelka naga YouTube-ka iyo page-ka aan ku leenahay Facebook intaba sadogtii walaalayaal xanuunkani waa xanuun baahsan waa xanuun aad u dhibaato badan qofkii Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo yani xanuunkaasi ku asiibo oo idankiisa uu yimaado waxay u baahan tahay si qoto dheer in loo daaweeyo si khaas ah oo special ah in loo daaweeyo cilada ugu daran oo dadku inta badan ay sheegaan oo haddana ay kuleeyihiin intaasoo sano ayaan xanuunsanayn intaasoo sano ayay ciladan haysay sixirkana intaasoo sano nahayay markaad waraysato oo si goona usii waraysatana waxay kuu soo baxaysaa inaysan dadkaasi aysan helin طبيبكي iyo qaabkii loo baahnaa ee saxnaa in aysan helin oo ama 100 qof lagu dhaxtaray oo chance lagu cilaajiyo aysan helin dadka ayaga noocaas oo kala ah oo haddana xanuunka ku soo noqonayo waxaan kula talinayaa koob loo qodob awalan qabla kulli shay in ay isku xiraan Allah subhanahu wa ta'ala inay ku xirnaadaan isla markaasna ay joojiyaan shakiga iyo shukuuka farada badan oo shaydaanku uu ku biirinayo xagga aad kan inaysan sameeynin hal meel ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala u tala saartaan meesha markaas ay isku cilaajinayaan ama isku daaweynayaan ay wax badan ka fiirsadaan risaaq badan sameeyaan qaabka markaas dadka loo cilaajinayo ama loo daaweynayo maxaa yeelay qof kasta oo doonayo in barnaamij sameeyo haddaad doonaysid dhakhtarka ugu wanaagsan ayaad xulanaysaa oo khibrad leh specialist haddaad u baahan tahay specialist aad raadsanaysaa haddii aad u baahan tahay barnaamij kale oo u baahan tahay waxaad raadinaysaa qofka arrintaasi aqoon leh haddaad business ganacsada aad tahay waxaad raadinaysaa qof talo ku siiyo xagga ganacsigaaga sidaad u horumarin lahayd talooyin baad u baahan tahay marka waa inaad arrinta ayada ah wax badan aad ku baraarugtid oo xanuunkaaga uusan hadduu kugu soo noqnoqday aadan la jiifanin oo meel aadan la fariisanin taas waa talada guud oo ku siiyo waxaa kaloo ugu biirinayaa inaadan laba qalbiyin waxa laba qalbiyeynta la yiraahdo iyaduna waxay keentaa soo noqnoqoshada xanuunkaas inuu soo noqnoqdo laba qalbiyeyn macnaheedu waxa weeye xanuunka ku haybiya ama xanuunka asafaya ama qofka yani shaki fara badan ayaa ku galay mar dhakhtar baad aadaysaa mar mucaalij baad aadaysaa mar mucaalij kale aad aadaysaa yani cilada noocaas oo kala ah waxay keentaa in xanuunkaagii sii dheeraado in markaasi dhaqaalihii aad ku bixin lahayd xanuunkaaga iyo daawada qaabka aad u raadin lahayd ayada lafteeda uu shaydaanku shaki kaa geliyo oo kugu waswaasiyo lacagta maxaad bixinaysaa maxaad sameeyaysaa maxaad sameeyaysaa waxyaalo fara badan ayuu kula wadaagayaa shaydaanka oo ku saabsan in aadan helin cilada ku haysata xanuunka ku haysta inaadan fahmin ayuu kaa hor istaagayaa guriga kugu celinaya marar qaar wuxuu kugu waswaasinaya kugu sheegaya adigoo maad isdaawaysid adiguba maad isdaawaysid waa taqaanaayo maaragta quraankan isku akhri isdaaway gurigaaga iska joog haddana awood uma lihid aad isku daawayso oo quraan isku saarto oo isku maaragtay waxayso haddaba marka waxaan idin sheegaya walaaliyaal kow inaad raadsataan qof khabiir ku ah xanuunadan isla markaasna aad Ilaahay subhanahu wa ta'ala u tala saarataan kuna sugnaataan barnaamijyada iyo qaabka uu idin dejiyo cilada ugu weyn oo dadka ku soo celcelisa xanuunka waxa weeye qof baa ku imaanaya nidaam baad u sameynaysaa
استراتيجية شياطين تاس ووين الغلط دجالما شحبة وجه حيسا مركز شحبة وجه حلا أيا وحكولي هاي ما يا أنا جو حان ربع سيدا أنا جو وحان ربع سيدا نيجي سيدا نيجي سيدا وأدوكم برنامج كان ما أديك بعد اخترت كأح ما أديك بعد معالج كأح إلا ده عن كويس التاع ده نورت تميت وسيدا إن الوعي علاجية على مباحنين هذيك قد يلفت هذا على ضاي سنبا كرنيس حين قريس أختار تلو يمين والحنون كاجا أدو شاكتي كدي من الداوي كوكور لا أترماي داود عن كلا يطر داود أنا قوها بون حنون كاجا على صوب باري ولا هذا داود أنا حنون كاجا قوها بون ما هي أنا وحنا ربع سيدا سيدا ما داود هذا أسبوع صعنيس داود بال صعنيس يسون كوكرة ما هي هذا أسبوع وحنا ربع قاب النوع عاصو كلا حتى حنون نظم عادي ayaa waxay sameeyaan wax system yaraado oo qofkii la qabsado jirkiisa iyo caanihiisa la qabsado marka qofka daawo aan ku filnayn la siiyo oo asaga jooskiisa bari kama ladana xanuunku soo qabto dana daawo jooskiisa hadana la siiyo oo qaato farmashash ka gato xanuunkii wuxuu yeelanayaa bakteeriyadii fayraska waxyaalaha noocaas waxay yeelanayaan awood bari kama daawada hadii la siiyo iskaga celiyo fayraska xoog u yeelanaya iyo bakteeriyada xoog u yeelanaya sidaas la mid ah xanuunka shayaadiinta jimanka isha sixirka waxyaalaha soo dhan hadii maalin mid xoogaa lagu kaakiciyo laga tago soo noqdaan lagu kaakiciyo laga tago yaani ayaguna markii dambe waxay noqonayaan way u adkeysanayaan waxyaabo badan bay u adkeysanayaan qofkii marka kama dhamaanayo xanuunkii waa uu jiran yahay wadaadu u yeeraya quraan baa la saaraya waa laga tagaya hadana halkii uu ka soo soconaya cilada noocaas oo kala ah waxaanu idin haynaa barnaamij aad ku xirtiri kartaan insha Allah ta'ala iyo daawooyin lagu xirtiri karo cilada noocaas oo kala qofka isku arkay oo hore xanuunkaasi ugu soo noqnoqday fursad muhiim ah ayaan haynaa waxaan kala soo xiriiri kartaan xarunta al-Hilaal Harbal ay ku leedahay magaalada Nairobi waxaan la kulmi doontaan barnaamijkaas dad si takhasus u leh oo si isbitaal ah u daaweynaya xanuunada noocaas oo kala daawooyinku waa ay noocyo badan yihiin daawadaas oo kale waxaa lagu daaweeyaa cudurka inta badan dumarka saameeya ee dhasha ragana sidoo kale wareega iyo maartay xagga xubinka taranka saameynta ku yeesho ayaa lagu daaweeyaa saliidan ayaduna sidoo kale way la socotaa daawadan iyo saliidan ayaa la isku qaataa dose bay leedahay iyo waqti ay soconayaan waa waxyaalaha inta badan ciladaas lagu daaweeyo aad baad u mahadsantihiin barnaamijkan uu socon doonaa tani waa hordhici iyo qaybtiisa hore iyo qaabka arintaasi lagu daaweyn karo aad baad u mahadsantihiin wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh bulshooy bishaaro warheede waa maxay bishaaradu soo moogid in laga raystay xarumihii dadka badan la isku dhex cilaajinayay oo Dr. Axmed Cilaaj uu furay xarun dadka si gaargaar ah lagu daweeyo ilaan xaaji xasadkayga baad ahayd maxaad mar hore ii geen wayday xaruntaas sida gaarka ah dadka loogu daaweeyo waa adiga boqolka qof igu dhex darayeen haddaba ina keen aan booqanay Dr. Axmed Cilaaj laga raysay wixii hore al-Hilaal Habol online waa xarun daawo dhireed oo leh goob jiifa bukaanku ku nasto ilaa uu ka bogsanayo laguna daaweyn sidoo kale al-Hilaal Habol online waxay leedahay